qof kasta oo ku fikira halkuu joogo inuu kor uga yara kaco khasab waxa la kulmaya culayskaasina wax kale maaha it's natural waa wax iska caadi ah oo waxa markaad fuusho marka diyaaradda intiina diyaaradda marka diyaaraddu fuulaysa hawada turbulence badan bay leedahay waxay leedahay dhaqdhaqaaq iyo cabsi badan shaqar bay leedahay gariir bay leedahay lightska way shidayaan suumanka geejista la oranayaa dadka ka dhex shaqeeya way fadhiisanayaan waxaad moodaa mini emergency baad moodaa intay fuulaysa hawada laakiin markay fuusho hawada ay gaadho 20 feet wixii ka sareeya layra shal dimiya soomasha iska dibciya leedaha dadka ka shaqeeya soo baxa inta macaan baa lagu siiyaa musqushaad gali kartaa it's okay noloshan waa saas sida caadiga waa sida waxa ugu daran markaad fuulaysa janajada markaad fuusho it's beautiful waxa jira macallinkayga quote aad u cajiib u leeyahay it's always lonely at the top but you eat better xagga sare mashquul ma baahaba maba noqoto mashquul ma firaaqo xagga sare وانا عدلو لكن سيرو معان بعد cuntayn cunteero fiican baad cuniyo baad ku raaxaysato dadku ma rabaan inay fuulaan fuulidana dadkii ilaahay mushkilad kaga dhigay mash caqabadahan ka waranay waxa la kulmo qof kasto isku dayay inuu wuxuu qabsado danihiisa raacdo ama isagu isbedelo ama wax uu isagu bedel isleeyahay karo bedeli karo waxba jiraad hadda isku dayayso ka fikirayso isleedahay tanaan isku daya tanaan rabaa inaan ka shaqeeyo tanaan waxba jiraad isku dayayso oo kulama qaadanayaan it's okay inaan lagula qaadani waa sax waa albaabka laga galo suurtagal ahaanshaha waxaad ka fikirayso that's the way haddaad marka koobaad ba yes maqasho next day ma shaqaynaysid waxaan u sameeyay waxaas oo dhan oo sameynaya qof ahaan igu kooban because waxaan ogaa reeboormo dhan ayaa aaminsanaa inaan samayn karin so I did it to prove them wrong waan sameeyay markaasi aan ugu sheegay in been tahay aaminsanaantaas waan runahay oo ay saxdu tahay in qofkii dadaala ee shaqeeya ee kartile ee ma aragtay dariiqeega haya inuu natiijo keenayo waa ballan kowniya waa sunno ilaahi iyo ilaahay dhigtay adduunyada ninkii dadaalay dariiqeega soo maray inuu helayo la toos maalin walba qorshe aad ku qaabilayso noloshaada haddii aad toosta adigoon qorshe lahayn waxa kuu wacan inaad iska sii wadato hurdadaada sida caadadaana dadku qorshahaaga way kuu bahalagelinayaan kaa cabsiinayaan iskuna dayayaan inay baajiyaan laakiin u sheeg inaanay arrin ku lahayn qorshahan aad adigu degtay u bixi wax kasta oo uu qorshahaasi howlgelin kasta oo uu qorshahaasi ku hirgalayo u dadaal qorshee qaabee u soco ha ka daalin xamaasad iyo dareen geli aamin inuu kuu suuro galayo rajo wacan ku ladh ducana ku adkee aamin in qorshe lagu meel maro arrin xuma abaar ka daran haddaanad lahayn qorshaad ku qaabilaysa noloshaada waxaad qorshaysatay inaad guuldarraysato haddii ay shaqayn waayaan qorshayaashaadu dib isugu noqo aqli isticmaal bedel qorshaha dhinacaad arrinta ka eegtay dhinac ka duwan eeg mar walbana waxaad sal ka dhigataa ood ka duushaa 3 shay maxaa kuu qorshaysan maxaa qorshaha ka qabiyoobay maxaase qorshaha ku qabsoomay 3daas min qiyaas ka shidaal qaado waxaan kuu rajaynayaa in qorshayaashaadu hirgalaan ogow mar walbana in qof kastoo qorshe leh qorshihiisa dadaalkiisa iyo hirgalkiisana ku hawlani inaanu ku ungoobin qorshe dadaalkiisii iyo hawlgalku u qalmeeyay helay waxa la hubaa inuu guulaysanayo sideed u wajahaysaa aad ula kulmaysaa caqabadaha nolosha waa inaan fahnaa changes koo dhani adiga kama imaadaan isbedelo waxa jira nolosha ka imaada oo adiga caqabad kugu ah mana jiro qof noloshoo dhani wada smooth ahayd almost everyone noloshu mar ama 2 jeer buu arki doonaa dhowr marar badan buu arki doonaa caqabado iyo rafaad iyo kuf iyo kacyo waxa laakiin qofku sida uu u arko caqabada ee uu u macnaysto ayaa atagu aaminaysa difference iyo farqa u dhaxeeya giving up or achieving success inuu qofku waxa faraha ka qaado oo isdhiibo oo iska dhaco iyo inuu qofku waxa guul caqiibo leh ka gaaro natiijo macnale inuu ka sameeyo waxa labadaas waxa kala saaraya attitude marka xagga waxa imanaysa markaad la kulmayso wajahaysa caqabado waxa muhiima caqabada saad u aragto a friend of mine nina saaxiibnahay oo aadan u jecelahay
caqabadaha weligii markii mushkilad iyo caqabad ama kadeed haysto magac buu bixsaday inagu problems baan idhahnaa waxa inagu dhaca waa mushkilad isagu laakiin projects buu yaqaanaa waa mashaariic markaad yara wacdo ama aad waxoogaa la sheekaysato eed weydiisanayo see tahay maanta mashaariic yar baan faraha ku hayaaba ku odhanaya markaa mashaariicna waad garanaysaa waxay kaaga baahan tahay waqti waxay kaaga baahan tahay attention waxay kaaga baahan tahay inaad supportka saaxiibada iyo dadka waxaa xallin karaa aad raadsato marka aad baan uga helay aad baan unu jeclaaday instead aad odhan lahayd caqabad baa haysato mushkilad baa haysato dhibaato haysta mashruuc baan gacanta ku haya marka maskaxdaadu sidee u aragta mashruuc iyo sidee u aragta dhibaato way kala duwan tahay markaad dhibaatada mashruuc u macnayso maskaxdaadu waxay keenaysaa possibility kasta oo mashruuc sidii loo xallin lahaa halkaa markaynu marayno positive attitude baa muhiim baan nidhi marka caqabado nololeed baa mar walbayna hor imanaya intaan safarkan ku jirnay maxaa lagaga baxaya dee waa hab fikir saxan in aanad balaayada buur leekaysiin in hal shay oo maalintaada ka xumaa una maalintaadoo dhan inay fool xumeed u ekaysiin marar badan waa iska caadi waxaad oranaysaa hal shay baa kaa xumaanaya maalin markaa guriga tagta ka war maalintaada lagu waxaad oranaysaa it was a bad day maalin xun bay ahayd laakiin nasiib daro adigaa maalinta dhan madoobeeyey ficil yar oo shay dhacay oonad jeclaysan darteed haddaad dib u booqato maalintaada milyan shay waxa jira ku wanaagsanaa oo ay ka mid tahay inaad caafimaad qabtay inaad neefsanaysay inaanad dhibaato kale kugu dhicin oo weyn inaanad dhiman in ma aragtay aanu loos weyn ku gelin in waxaad ka cabanayso wax ka weyn inuu kugu dhicin ma dareensanid laakiin waxaad dooratay in dhibic yaroo madow oo maalintaada ku dhacday aad maalintii dhanneed ku shaambadayso marka positive attitude baa badbaadada badbaadadu waa inaad adduun arag wanaagsan oo buunbuuninta iyo balaayo sheeg uu ka reeban yahay inaad isticmaasho